maanta marxaladda uu dalka marayo iyo siyaasadaha dunida ay isdiidaan waxaana hor yaalla waajibaad cadcad oo aan ognahay in lagu guulaysan karo marka la muujiyo hufnaan isku duubni iyo karti hoggan maanta oo aan la wareegayo wasaaraddii arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan ka shaqayn doonaa sidii aan u sii wadi lahayn xoojinta xiriirka caalamiga ah ee diblomaasiyadeed oo ku salaysan dhexdhexaadnimo iyo wada shaqayn sidoo kale waxaan ka shaqayn doonaa difaaca muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan insha allah waxaan sidoo kale ka shaqayn doonaa inaan qayb ka noqonno firfircoon inay soomaaliya ku yeelato madalaha caalamiga ah iyo doorkeeda nabadeynta geeska ama gobolka aan degannahay waxaan sidoo kale si dhow ula shaqayn doonaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda diblomaasiyiinta safaaradaha inoo jooga iyo wakiilada saaxiibada beesha caalamka si aan u xaqiijinno siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya inay noqoto mid miisaaman una adeegta danaha qaranka soomaaliyeed hadafkeenna waa soomaaliya oo noqoto dal firfircoon oo leh door caalami ah dal xasiloon gudaha iyo dibadda dal barwaaqo ah oo la jaanqaada horumarka caalamka iyo dal sumcad ku leh fagaarayaasha caalamiga marka aan eegno horumarka dalku uu sameynayo intii ay jirtay dowladda dal qaran oo lagu saleeyey qorshaha isbeddelka qaranka ee NTB waxaa si cad noogu waajib ah in aan fursadaha ku jira isbeddelka qaranka aan si wada jira ugu wada shaqeyno innagoo xoojinayna xiriirkeenna caalamiga ah annagoo sidoo kale difaacayno danaha muwaadiniinta soomaaliyeed meel bay ku sugan yihiin iyo in aan kordhinno doorka soomaaliya ee shirarka caalamiga ah si ummadda soomaaliyeed ugu gaaro danaheeda iyo codkeeda dunida dacladeeda waxaan sidoo kale ka shaqayn doonaa si loo soo jiito maalgashi fursado ganacsi iyo horumar dhaqaale hadduu allaha wadda la yidhaahdo soomaaliya waxay la daaladhacaysaa la dagaalanka argagixisada maadaama aan wasaaradda arrimaha dibaddu ay tahay meel muhiim ah oo qaranka ay u tahay wejigii diblomaasiyadeed waxaan sii xoojin doonaa la dagaalanka argagixisada iyo xagjirnimada waxaan doonaynaa inaan noqonno dal ka guulaysta cadowga argagixisada si loo helo nabad waarta horumar iyo wada shaqayn waxaan sidoo kale la shaqayn doonaa hay-adaha caalamiga ah iyo diblomaasiyiinta caalamiga ah si loo gaaro nabadaas oo aan uga guulaysano kooxaha qawaaniijta innagoo mar walba fulinayna ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiisa dunidana heshiis la ah xukuumadda dan qaran waxay si cad uga go-an tahay inay hirgeliso ajandayaasha qaran ee ku dhisan nabad iyo wada shaqayn guud oo ku salaysan dalalka dariska nala ah sidoo kale waxaa xusid mudan intii ay dowladda dan qaran jirtay inaan ku biirnay ururo badan oo caalami ah oo uu ka mid tahay ururka golaha ammaanka ee qaramada midoobay waana fursad taariikhi ah oo ay naga go-an tahay ka qaybgalkaas inuu noqdo mid saameyn muuqata leh sida hadda mas-uulku uu sheegay ka qaybgalka United Nations Security Council marka qaarkoodna fursad buu noqon karaa marka qaarkoodna caqabad buu noqon karaa waxaan ku dadaalayaa annagoo qaadanaya tilmaanta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha inaan ku shaqeyno siyaasad dhexdhexaad ah oo ummadda iyo dalka soomaaliyeed iyo danta qarankaba u hiilinaysa intii aan ku jirno golahaas hadduu allaha wadda la yidhaahdo sidoo kale xukuumadda dan qaran waxay ku biirtay ururka EAC oo ah runtii fursad weyn inay soomaaliya ku biirtay ururkaas oo hirgelinayo in uu sameeyo fursado ganacsi isu socodka dadweynaha East Africa iyo
fursado badan oo runtii nooga jiro ka qaybgalka ururka East Africa ayadana insha Allah culays weyn baa saari doona intii aan xilkan hayo gabagabadii waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo in guusha qaranka Soomaaliyeed ay ku jirto gacmaheena oo midaysan waxaan ku boorinayaa dhammaan madaxda shaqaalaha agaasimayaasha wasaaradda inay sii xoojiyaan dadaalka hal-abuurka leh ee ay wadeen intii ay wasaaradda joogeen annagu waxaan idin bala qaadayaa wada shaqayn hufan oo aan rabo inaan idinku hogaamiyo intii aan idala joogo hadduu Allah awoodda la yidhaahdo waxaan balan qaadayaa inaan sii wadno horumar oo aan dardar gelino geedi socodka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya annagoo ka turjumayna baahiyaha dowladda dan qaran mar labaad waxaan u hadlinayaa saaxiibkeeda wasaare Xamse iyo Xasan Sheekh Maxamuud inay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inay mar saddexaad ii doorteen inaan hogaamiyo wasaaraddan ducaan idinka rabnaa wada shaqayn baan idinka rabnaa garabkiinaan ahay insha Allah qof idinka mid baan ahay haddii aad guulaysataan loo guulaysanay وبالله التوفيق الصومالي.